salaamullaahi calaykum meel kastoo aad adduunka dacaladiisa ka joogtaan wararkii ciyaaraha ee caawa yaa ciyaaraya Premier League ayaa dib u furmay kooxda Manchester United iyo Burnley ayaa caawa wada ciyaari doona kooxda Man United ayaa marti waxay u tahay kooxda Burnley kooxda Manchester United ayaa doonaysa inay guusheedii saddexaad oo xiriir oo Premier League ay caawa gaadho Burnley ayaa ah kooxda ugu hooseysa Premier League iyadoo xilli ciyaareedkan ay gaadhay hal guul oo kaliya waxayna ku jirtaa kaalinta ugu hooseysa ee lagu aado divisionka waxayna doonaysaa inay kor u soo kacdasay iyadoo ku dagaalamaysa inay caawa ka badiso kooxda Manchester United labada kooxood ayaa u kala dagaalami doona inay midna sii haysato kaalinteeda afraad sidoo kale kooxda Burnley iyaduna waxay u dagaalami doontaa inay kor u soo kacdasay uga soo baxdo kaalmaha ugu hooseeya ee Premier League iyadoo doonaysa inay ka badiso kooxda Manchester United halka Manchester United ay doonayso inay iska maydho ceebtii ka soo gaadhay FA Cup iyadoo Middlesbrough ay ku reebtay rigoorayaal isla markaana ay madaxa ku dajistaan waxa sidoo kale ay rabaan inay rajadooda UEFA Champions League kor ugu qaadaan una sii xejistaan kaalintooda afraad ee Premier League sidoo kale tababaraha Manchester City Pep Guardiola ayaa ka hadlay muuqaal laga duubay laacibkiisa Grealish kaasoo khamri cabsan oo dhacdhacaya 26 jirkan heer England City xagaagii la soo dhaafay kaga soo iibsatay Aston Villa lacag dhan 100 milyan oo gini laacibkan ugu qaalisan Premier League ayaa la arkay muuqaal laga duubay isagoo cabsan oo dhacdhacaya Guardiola oo la hadlay warbaahinta ayaa hoos u dhigay muhiimadda muuqaalkan waxaanu ku jawaabay qaab kaftan ah isagoo yidhi imay macsuumin tababaraha heer Spain ayaa yidhi aad ayaan uga murugaysanahay sababtoo ah imay macsuumin mana jeclayn inay sidaas sameeyaan marka dambe waxaa laga yaabaa inay macsuumaan mana jeclayn inay sidaas sameeyaan marka dambe waxaa laga yaabaa inay macsuumaan si cashadu si fiican ugu dhacdo 8 habeenimo ah si aan si wada jir ugu wada cashayno maraqana u wada cabno marka ciyaartoydu way garanayaan khatarta warbaahintu bulshada marka ay dibadda u baxaan Grealish ayaa dhawaan laga saaray liiska ciyaartoyda Man City iyadoo tababara Pep Guardiola ku eedeeyay inuu u dhaqmin si habbooneen hase ahaatee hadeer wuxuu ka soo qaaday arrinkan dhacay ee muuqaalkan laga duubay si caadiya oo kaftana taasoo meesha ka saaraysa wararkii sheegayay inuu ganaax ka mutaysan doono Pep Guardiola wararkii ciyaaraha daba intaasan ku soo gabagabeynaa wabillahi tawfiiq